wararkii ugu dambeeyay Imaaraadka oo saldhig military weydiistay Somaliland iyo xog culus oo laga helay kulamo saacado badan qaatay oo dhexmaray madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro iyo madaxda sarsare ee Imaaraadka Carabta maxay ka wada hadleen maxaase ka jira in Somaliland ay ogolaatay in la siiyo saldhig military dawladda Imaaraadka Carabta warbixino ayaanu idinkaga haynaa xogta mid kamida mooshinadii ugu cusla abid oo lagu karkarinayo magaalada Nairobi kaas oo ka dhanaa ra'iisul wasaare Xamse iyo xildhibaanadii ugu badnaa oo saxiixay mooshinkaasi haddaba miyuu wax ka og yahay qorshahan madaxweyne Xasan Sheikh sideese shirqoolkan uu uga badbaadi karaa ra'iisul wasaare Xamse iyo faahfaahin ka soo baxaya dagaalo lagu riiqmay isla markaana soo gaaray xalay saq dhexe oo gobolka Hiiraan ku dhexmaray ciidamada deegaanka oo garab ka helaya militariga Soomaaliya iyo kooxda shabaab deegaankii weynaa ee Beere Yabaal oo lagu kala baxay qodobadaas ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah fadlan daawada muuqaalka like saar sidoo kale si share garay la sii wadaag saaxiibada kale ee kugu jira baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno warar lagu kalsoonaan karo oo soo ifbaxaya ayaa waxa ay sheegayaan in dawladda isu tag Imaaraadka Carabta ay weydiisatay Somaliland saldhig military in ay ku yeelato deegaanada Somaliland haddaba xogtan ayaa waxaanu ka soo xiganay ilo ku dhow wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ee ku sugan dalka isu tag Imaaraadka Carabta kuwaas oo wada hadallo leh madaxda sare ee dalka isu tag Imaaraadka Carabta xogta waxa intaasi ku sii daraysaa in Imaaraadka Carabta uu markaasi si rasmi ah uga dalbaday dawladda ama maamulka Somaliland in ay ka shaqeeyaan sidii saldhig military loogu ogolaan lahaa Imaaraadka in uu markaasi ku yeesho gacan ka cadmeed isla markaana si uu u sii xoojiyo istaraatiijiyadda uu ku leeyahay deegaanada Somaliland si gaara in dekada Berbera uu markaa ku yeesho saldhig military oo uu ka dhigo halkaasi meel muhiim u ah Imaaraadka Carabta inkastoo aanan si rasmi ah loo haynin jawaabta uu bixiyay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa haddana waxa lagu soo waramayaa in Cirro uu dalbaday in la siiyo waqti dheeraad ah uu kaga soo fakaro in Somaliland laga sameeyo saldhig military oo ay leedahay dawladda isu tag Imaaraadka Carabta Imaaraadka Carabta oo maalmihii la soo dhaafay haysay Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa uu la kulmay sidoo kale ninka ugu sareeya sanduuqa dhaqaalaha lagu hormariyo ee dalkaasi Imaaraadka Carabta waxaana Somaliland markaan loo furaya qasnadaha lacagaha si markaa kalsooni badan loo geliyo isla markaana wixii Imaaraadku uga baahdo iyaguna ay markaasi u fududeeyaan Imaaraadka ayaa saameyn xoog leh ku leh Somaliland waxaana halkaasi uu ku leeyahay dekada weyn ee Berbera maamulkeeda iyo sidoo kale shirkadda DP World oo halkaas ka shaqeysa isla markaana dekada maamusha kaabayaasha dhaqaalaha ayuu qayb weyn ka qaatay Imaaraadka isagoo oo wadooyin iyo sidoo kale dhismayaal qurux badan u dhisay Somaliland isla markaana ka saaciday waxyaabo badan oo ku saabsan dhinaca shaqooyinka iyo sidii dadka reer Somaliland ay u noqon lahaayeen kuwa markaasi fursado ka hela dhaqdhaqaaqyada maalgashi ee Imaaraadka halkaasi uu ka wado Imaaraadka ayaa mar horeba waxa uu ka sameystay Somaliland horumaro maalgelin ah oo aad u ballaaran iyada oo ay ugu weyn tahay dekada Berbera maamulkeeda oo DP World ay iyadu markaa gacanta ku hayso waxaag dhinaca kale hadii aanu eegno wararkeena mooshin kamid ah kuwii ugu xasaasisanaa ayaa laga diyaarinayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxaana uu ka soconayaa dalka Kenya gaar ahaan Nairobi saacadii la soo dhaafay waxa jiray mashquul iyo guux xoog leh oo ku saabsan in la bilaabay mooshin ka dhanaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyada oo saacadii la soo dhaafayna ay Nairobi ku kulmeen xildhibaano fara badan oo ka kala tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya xildhibaanadu waxay doonayaan in mooshinkan uu noqdo mid markaasi hirgala marka sidaasba loo furo kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo furmaya maalmo kadib amaba horaanta bisha February ila ku dhow xildhibaanada arimahaas isku dubaridaya ayaa waxay tilmaamayaan in uu socdo qabyo qoraalka mooshinka inta badan xildhibaanadu ay qalinka ku duugeen waxay qorsheynayaan in marka uu furmo kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka ay u gudbiyaan golaha shacabka mooshinkaas ra'iisul wasaare Xamse oo xafiiska jooga sanadkiisii saddexaad ayaa hadii uu ka badbaado mooshinka lagu soo beegayo kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka waxa uu haystaa fursad uu ku noqdo ra'iisul wasaarihii ugu cimriga dheeraa sida hore loogu arki jiray taariikhda baarlamaanka kala fadhiga lixaad wixii ka dambeeya
waxaa yaraada awoodda iyo abaabulka baarlamaanka sababo la xiriira in la gelayo dhammaadka muddaxileedkiisa dowladda oo lagu mashquulayo arrimo la xiriira doorashooyin iyo sidoo kale in xildhibaanadu ay raadsadaan mandate cusub. abaabulka mooshinkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Axmed Madoobe uu joogo Nairobi. dagaalka ra'iisul wasaare Xamse Axmed Madoobe ayaana qarxay wixii ka dambeeyay dagaalkii iyo sidoo kale markii Axmed Madoobe uu shaaciyay in uu doorasho qabsanayo dowladda federaalka iyo sidoo kale Axmed Madoobe ayaa meel adag kala jooga. haddaba mooshinkan waxaa leeyahay heerkiisu waa uu sareeyaa waxaana suurtagal ah in markaa uu qarxo ama uu socdo. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la tilmaamay in qorshaha uu si ula socdo isla markaana uusan si buuxda hadda diyaar ugu ahayn in uu sii difaaco ra'iisul wasaare Xamse maadaama uu doonayo in dalka isbedel uu galo. haddii ra'iisul wasaaruhu uu iska sii joogana wax soo kordhaya aysan jirin oo xaaladdu sidaan ay iska sii ahaanayso loona baahan yahay in la sameeyo markaasi isbedel dhab ah oo wax badan markaasi bedeli kara. waa hagaag ugu dambeyntii ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa waxa ay ku dagaalameen kooxda al-shabaab deegaan lagu magacaabo Beerayabaal oo ka tirsan gobolka Hiiraan. dagaalka oo ahaa mid lagu riiqmay ayaa soo gaaray ilaa ay xal saq dhexe waxaana la sheegay in dagaalkan uu ka mid ahaa ugu cuslaa ee waayahan dhaca. taliyaasha hogaaminaya dagaalkan ayaa waxa ay sheegeen in kooxda jab xoog leh lagu gaarsiiyay isla markaana ugu dambeyn laga farmaroojiyay deegaanka Beerayabaal oo ka mid ah deegaanada ugu muhiimsan ee gobolka Hiiraan wax badan laga saari waayay kooxdaasi. waxay sheegeen saraakiishu inay burburiyeen saldhigyadii ay halkaasi kaga dhuumaalaysanayeen kooxda sidoo kalena ay ka furteen hub iyo saanad ciidan. waxaa sidoo kale la sheegay in al-shabaab laga dilay xubno badan oo dadkii markaasi u dagaalamayay ah. deegaankan Beerayabaal ayaa maalmihii dambe waxaa ku soo noqnoqonayay dagaal u dhaxeeya dhaha kooxdaas iyo waliba sidoo kale ciidamada huwanta ah ee deegaanka iyo kuwa dowladda Soomaaliya markaa iyagu ka tirsan iyo kuwa dadka deegaanka ayaa waxa ay ku dagaalameen kooxda al-shabaab deegaan lagu magacaabo Beerayabaal oo ka tirsan gobolka Hiiraan. dagaalka oo ahaa mid lagu riiqmay ayaa soo gaaray ilaa ay xal saq dhexe waxaana la sheegay in dagaalkan uu ka mid ahaa ugu cuslaa ee waayahan dhaca. taliyaasha hogaaminaya dagaalkan ayaa waxa ay sheegeen in kooxda jab xoog leh lagu gaarsiiyay isla markaana ugu dambeyn laga farmaroojiyay deegaanka Beerayabaal oo ka mid ah deegaanada ugu muhiimsan ee gobolka Hiiraan wax badan laga saari waayay kooxdaasi. waxay sheegeen saraakiishu inay burburiyeen saldhigyadii ay halkaasi kaga dhuumaalaysanayeen kooxda sidoo kalena ay ka furteen hub iyo saanad ciidan. waxaa sidoo kale la sheegay in al-shabaab laga dilay xubno badan oo dadkii markaasi u dagaalamayay ah. deegaankan Beerayabaal ayaa maalmihii dambe waxaa ku soo noqnoqonayay dagaal u dhaxeeya dhaha kooxdaas iyo waliba sidoo kale ciidamada huwanta ah ee deegaanka iyo kuwa dowladda Soomaaliya.